sida baal dhexe haabaya dabaylaha kala gacaylka aan isku dayo in aan dareenkayga soo ururiyo kuna soo qoro waayo waxaynu wadaagnaa ka xiriir lagu tilmaamsado jacayl guur uun ku dhamaada tay ugu daran uun aan abaar waa baaxadda dareenkayga oo ka qoto dheer in eriyo lagu cabiro qalinkaygu ma awoodi karaayo inuu tilmaamo dabkaygu baxaayo inkastoo in walbahaarka jacaylka ula simanahay bulshooyinka dunida tan iyo waagi qays iyo leeyla iyo sheekooyinkii kun habeen iyo habeen ilaa qarnigan la sahamiyay xidigaha haddana suxuunta wareegta iyo ciljeeranadu toona kama gudbi karaan diilinta waqtiga si ay uga warkeenaan is aragayay wali uu isi badhaamaya horjoogsigaagii ku soo dhawaada dhagaystiyaal qaybtii 8aad sheekadii laga daba dhacay ee dikaan jacayl uu qalinka u qaatay abwaan daahir cabdulla cali sow daahir yare abwaan maxamed cali kaari allaha u naxariistay ayaa markii uu ka yaabay siyaabaha ay ula dhaqantay shankaroon axmed yuusuf sagal ayaabihii uu jacaylka u sheegtay wuxuu alifay hees uu leeyahay ilaa looma sheegto dumar caashaqaagoo shishay kaaga guraan haddaan dib u shallaayay daraasaad la sameeyey ayaa la ogaaday in dumarka ismacays iyo isqaaliyeenba ay sameeyaan markii aad jacaylka u sheegato hase yeeshee waxay xeeldheerayaal fara badani qabaan in ay ku wanaagsan yihiin markay iyagu ay jacaylka sheegtaan miyaan dhagar dumar ku jiifa dhalanteed miyaan rumooda miyaan dhagar dumar ku jiifa dhalanteed miyaan rumooda ruuxii dhibanoo maqsuuda dhakhtarku muxuu ka sheegaa ruuxii dhibanoo maqsuuda dhakhtarku muxuu ka sheegaa ruuxii dhibanoo maqsuuda dhakhtarku muxuu ka sheegayaa jawaabtu waa maya nasaludiin markii la geeyay isbitaalka wuxuu dhakhtarku sheegay in uu wanaagsan yahay laakiin u baahan yahay nasiino nasaludiin waxaa la geeyay xaafadii uu ku degay wuxuu galay jawi caadi ah oo ka wanaagsan walaacii faraha badnaa ee mahiigaanka ku noqday xilli saacaddu ay abaarayso 12 saqdi dhexe ayuu maqlay hees aad u macaan laakiin anti ku ahayd wuxuuna dareenkiisa siiyey in uu dhagaysto oo uu jaleeco heestu waa hees macaan laakiin isaga weligii ma maqal waxaana miraheeda ka mid a hurdo kama bogto barkin baan ku tiirshaa bogga iyo calooshay abwaan jacayl daashaday ayaa sameeyey miraha heesta waana abwaan maxamed cali kaariye waxaa qaadaysa fanaanada codka macaan ee khadiija foodi nuur wuxuu u gurgurtay dhinaca heesta laakiin nasiib darro isla markiiba waa la damiyey waayo baroobe ayuu u shiday qofkii marka hore heesta daaray oh my god waan ka xumahay qofka iga dambeeyay wallaahi waa hees macaan ayuu keligii isku yidhi nasrudiin inkastoo nasrudiin xiise u qabay heesta haddana wuu ka xishooday inuu xilligaasi qofka tijaabada u shiday u garaaco ay guri wada deganaayeen hurdo ayuu gabi waayey kadibna wuxuu akhrisaday aayad kursi si uu rabbi culayska iyo gocashadaba uga dulqaado gadgadoon wuxuu ku jiraba markuu waagu baryay ayuu yidhi hala ii shido heestii xalay la shiday oo ahayd hurdo kama bogto durbo waa la gartay waana loogu tuuray codsigiisa hurdo kama bogto barkin baan ku tiirshaa bogga iyo calooshe beerkaan u seexdaa barbarada ma qabanaye anigoo burburayo dhinacyadu i barareen waagu ii barye heestu markay halkaa mare ayuu istaagay uu damiyey wuxuuna isku tuuray sariita heestii ayuuna hiifay alla maxay ahayd heesta ma waxay ogtahay xaaladii xalayto oo hay ha maxay ka run sheegtay gabadha fanaanada ah nolosheedii xalayto ayuu la fariyo qaniinsaday nasrudiin eheladii guriga ayaa gartay in wiilka waxuun si ka yihiin waxayna su'aaleen sida ay wax u jiraan nasrudiin oo ilmeynaya ayaa si guud shaaca uga qaaday mucjisadii xalay ka maagtay maskaxda isla markaana uu la gabi waayey
qof walba oo halkii joogay ayaa madaxa qabsaday isagoo quraac dhaaf warkeedii qadadii ka biyadiisan waxaa u tagtay gabar isku sheegtay in ay warqad qoraal ah uga siday gacalisadiisii arooska ka gashay ee ballanta guur uga baxday warqadii ayuu akhris ku bilaabay waxayna u qornayd sida tan aboowe iga raali noqo hana u qaadan xumaan waxaan rabaa inaan bil gudaheed ku imaado si aan uga wada hadalno wixii jiro gafna waa dhacaa ee ku samir ina cafi macaane erayadaasi iyo erayo kale oo kasii macaan ayaa wadnaha looga dharbaaxay dhambaalkii uu akhrinayay ma aha mid ay Nimco Faarax soo qortay ee waa sheeko ay soo abaabuleen gabdho doonaya in ay qalbiga u qaboojiyaan weli wuu iisii bidhaamayaa horjoogsigaagii aan ugu indha daraan daray sidii qof indhala'aayo markuu hor yimid cadceedda uun ay indhihii u baxeen sidii baan u weheshadaa dhambaaladan kuu soo qorayay welina dhakhtaradu ma ay helin casharkii lay waraabin lahaa adaan ma bogsiima la ii raadsho iyagoo oon weli iiga quusan bay dadkayagu yidhaahdaan bilow ka bogsatay bukaankani Nasruddin waa naf wax jecel wuxuu durbadiiba bilaabay qoraal warqad jawaab celin degdeg ah isagoo ku calaacalaya in jacaylkii shalayto uu ku lebalixaadsaday wixii ka dambeeyay markii uu la kulmay wuxuuna warqada daaha uga rogay erayadan dhoolda ay la moodiyay waan kugu dhadhabayaa dharaartaynu kulanaa dhulku ila wareegay dhimasho iyo nolol wali kala dhex jooga dhankii aad imarisaba ku dhiibay talade adna ha igu dheeray dhibaatadan ay hayso ii soo dhaweey aan dhamayno xaajada dhoolda ay la moodiyay waan kugu dhadhabayaay dharaartaynu kulanaa dhulku ilaa wareegay dharaartaynu kulanaa dhulku ilaa wareegay dhimasho iyo nolol baan weli kala dhex jooga dhimasho iyo nolol baan weli kala dhex jooga dhankiyaadi marisaba u dhiibay talaadee dhankiyaadi marisaba u dhiibay talaadee adnaha igu dheerayn dhibatada i hayso isoo dhaweeyo an dhammayno xaajada dibid baxay la moodiye waan kaa dhursugayaa dhawaaqaan jeclaystaan dhaqsi kaaga filaya dhayal haw malaynin wayga dhab caashaqa wadnahay dhufarayo dhiiggayga nuugaye adnaha igu dheerayn dhibaatadani hayso ii soo dhaweey aan dhammayno xaajada kadib sidii ruux gaaray guul ayuu qada iyo qubaysba u istaagay jawaabtii Nasruddin si toosa ayay gabadhii ugu geysay Nimco Faarax inkastoo fariintii hore ay ahayd mid been abuura Nimco indha kuma fiirin dhambaalka Nasruddin sida lagu yaqaano qof aan qiimeyn jacaylka ama waqtiga baahi jacayl aysan hayn isla markiiba dhambaalkii waxay ku tuurtay meel aanan munaasib ahayn Nasruddin maalmo markii uu jawaab celin ka waayay ayuu garwaaqsaday jacaylka la sheegayaba in uu yahay afka baarkiisa waxaana tiro 6 jeer ka badan laga maqlay isagoo leh caashaqow badaadaba haddaanan kaa bixin waad howlo badan tahay intuu iska dhigay ruux ka samray gabadhii guurkiisa xumaysay ayuu sheeko caadi ah iyo idaacada dhageysi ku mashquuliyay naftiisa hase ahaatee taasi marnaba niyadda Nasruddin kama saarin walaa howgiisii jacaylka haddii uu qarsan jiray jugtii gaartay wuxuu bilaabay qof walba is arkaanba inuu u sheego jabkiisa iyo Nimco Faarax sida ay ugu weyn tahay laabtiisa calaacal iyo catowgiisii faraha badnaa dad badan ayaa hoosta ka hiifay wuxuuna qofka ugu wanaagsan kula taliyay in uu iska iloobo arrimahaasi mustaqbalkiisana ka fikiro
wareystaba anigu inwaasha waligu tilmaama waligu abuura markii uu waayay qof u diirnaxdo ayuu boggiisii ilimada ku qoray murugada noloshiisa marnaba aanan ka baxaynin iyo xasuustii habeenkii murugada iyo heestii beerkan u seexda intii aan bad qabay hawshiisu igu badan ha u baran lahaaya ha u bixin lahaaya imikoon basti ahay baroor miyaa wax ii qaban erayada beerkan u seexdaa ku jira Nasruddin agtiisa waxay ka noqdeen kuwa munaasab ku ah sheekadiisa murugada nin buka boqol u talisay ayaa la yiri jacaylna waa kan daqiiqad walba film cusub ku shidaya kaana dhigaya qof lagu maadeysto adigoo markii hore ahaa qof xikmadiisu dadku ay ka faa'iideystaan argagaxiso jacayl iyo lama iloobaan ayaa hareeyay nolosha Nasruddin dantuna waxay biday in uu noqdo abwaan wuxuuna bilaabay inuu alifo geeraro iyo gabayo kula hadlayo gabadhii ballanta guurka uga baxday Nasruddin erayada uu sameeyay dhammaan waxa laga dheehan karaa qoosasho ruux garasho dheero geerida yaqaana marna lama guhaadshe iga goo halkii aan gibilkaaga uga il garta labada qaybood farxad kuma gargaartee waxaan gocanayaa wali galbiskii arooskii habeenkii gaduudna daalgeeriyaadkii nabarada igaaroon marna laga garaabine inkastoon gardaadsho gudcur iyo habeen dheer riyo kula gorfeeyoon gadgadoon sariirtii saqdii dhexla guuxo maxaa gubay jacaylkii aad shala gorfayso garbaduub xarigiyo lagu geliyay adag go'aankaad jeclayd baad kaliga la guurtee galbiskii la hiifiyo guur aan xasuus dhalin rabbi inuu go'aanshaan guulahay ka tuugee anna gocashadaydii gaf ma aan iloobine gabar yahay wixii aad kolba go'aansataa dhacay mirihii ka soo go'a waxaad guran markii uu gamuunkii nafsiga siday soo galo halbowlaha garta labada qaybood farxad kuma gargaartee iga goo halkii aan gibilkaaga uga il la soco qaybta 9aad sheekada xiisaha badan ee Dekaan Jacayl موجي تعيل